الحمد لله رب العالمين إلهي baa mahadle akhyaarta halkan isugu timid yeerida aniga lahaa Soomaaliduna waxa taa ninkii dadka u yeeray baa hadalka bilaaba ayaanu kacay maanta saacad ku dhow kowdii meelaha waxaan la ii keenay baaq dhalinyaradiinan uu hogaaminayo Cabdikariim Axmed Mooge oo imika ahaa sharaxii ugu codka badaa magaalada Hargeysa ee dhigay record aan hore loo dhigin u malayn maayo inuu jiro murashax Yurub iyo meel oo adduunkaaba cod intaa leeg kaliya helaa oo kale miidiyaha ka dalbaday waxaan doonayaa arrintaa oo xaqii codbixiyaashii la doortay la hor taagan yahay in cadaalad ahaan uu soo dhex galo marka anoo taa ka jawaabaya isla saacaddiiba waan raadiyey inaan helo oon ku idhaahdo diyaar baan ahay ina kale mar haddaad baaq dee hawada soo marsan anigu idiin soo marinayo baaqa hawada ii kale anigu tiwaatirkan idiin soo marin maayo miiran idiin soo marin maayo ii kaalay aan ku wada hadal leh arrintaasay ku timid marka koowaad aada iyo aad ayaan idiin soo dhaweynaya waxaan idinku hambalyeynayaa isaga iyo raggii la kaambangelay ama la socdoba guushaa weynaa gaadheen waxaa kaloo hambalyeynayaa dhammaan shacabka somalilan meelay joogaanba da' kasta rooliya caruur sheekh iyo shariif miyiyo magaalo rag iyo dumar qurba joog sida wanaagsan ee niyad samaanta eenu doorashadii u gallay dadku markay niyad samaadaan ee calooshoodu isu fayowdahay wax wada qabsanayaan ilaahayna wuu gargaaraa ilaahayna wuu nagu gargaarayo waa doorashadii gaadhi shil galay oo dad ku dhinteen mooyaane aan wax dhibaatay ka dhicin taasina awood aynu leenahay maaha ilaahay baa inagu gargaaro nuuga mahadnaqaynaa innaguna caloolsamaan baynu ku dadaalnay nabaddu way noogu dhammaatay wanaagna way noogu dhammaatay ummadduna way nooguma jeertay taa aynu ilaahay saa nagu siiyey waxaynu ku dadaalanaa inaanay gelin wax shaasheeya doorashadeennii doorashooyin ka dambeeya golayaasha iyo mayradeelana inay ku dhammaadaan si turxaan la-aana oo wixii yimaadaba la qaboojiyo waxaan aad uga xumahay inaanu ku dadaalnay in hablahaas doorashada qayb ka helaan annagu xukumad ahaan koota in loo sameeyaanu soo jeedin golaa sharci dejintaa nagu diiday baarlamaankaa nagu soo diiday waxaanu u hawlgallay waxa wixii carqalad ku noqon kara hablaha iyo dhalinyarada doorashada inaanu ka dhaafno dhammaan dhaqaale lagu waajibiyey inuu qofku doorashada ku galo waan ka dhaafna hablaha haddana nasiib darro wixii waxba kama naas caddaan oo hablihii lama dooranin laba saddex marka doortay imaatinkeenna maanta waxaanu idiin ballan qaadayna xaqa aa leedihiin iyo doorashada ka cabateen wax alle wixii xaqdarriya xadguduba inaanu kala hawlgalno in xaqa iyo lagu soo celiyo waddadii sax ahayd waddo kasta oo la maranayo in loo maro waddo sharciya baaqiinii jawaabtiisa waxa weeye waanu idin garab taaganahay wixii xuquuqa ee doorashadaa ku leedihiin ee codbixintaa ku leedihiin ee miisaankaa saataa ku leedihiin inaanu u diyaarnahay inaanu idinla hawlgalno oo waddada xaqa ah ee dawga a lagu soo celiyo idinkana gardarra idiin qaadi mayno oo wax gardarraah oo xad ku gudubsan dee socon mayso waxaad xaq u leedihiinna anigu madaxweyne ahaan dee waan idinla hirgelinaya sharcigaasaa inoo dhexa baaqii aad tidhahdeen cadaaladda ka soo dhex gala intaasaan ka idhi qorshaha waddaan iyo waxaa yeeli doontaan iyo waxaa ila imanaysaan dee idinka idin taalla kulankeenna maantu jawaabtii baaqiina ayuu ahaa annaguna dee midiyaha noo soo mariseenoo ismaan araga madaxdii xisbiga iyo xukuumadba waxaan ahayd inaanu ka jawaabno oona inoogu daahin daaqaas sababtaan u yeelana waxaa weeye xasaasiyad belayn doorashooyinka dadka wax doorta codbixiyaasha in badan maynu soo joogno xamaasad weyn bay qabaan adan codkaagi sahalo mahayn waxaa weeye wixiina waa la diiday war lama diiday waxaagi nina ma diidi karo codkiinii iyo miisaankiinii xisbi iyo qof iyo sharci midna lama diidi karo
laakiin dee wuxuu sharciye martaa oo waa boolotigi oo waa hawl badan yahay si degan dadkiina taa ha loo ogaado hala deganaan idinkuna wixii aad tabateen iyo waxa qaloocan iyo fikradiina dee waxay la tahay waqti aanu degannahay oo lasu diyaar garoobay aynu ka hadleen anaga intaasina iga dhintay madaxweyne marka hore aad iyo aad baan kuu salaamayaa waxaanan kaaga mahadnaqayaa sida milgaha leh sharafta leh karaamada leh degdega ah saaka ayuun baa ahayd markii aanu shirka jaraa'id aan qabtay shirka jaraa'idna wuxuu daaraa uun waan ogahay wax walba inay sharci maraan waan qadarinayaa waana sheegay shirkaygii jaraa'id waxayse ahayd baaq codsiya in la ixtiraamo codka shacabka inta badan oo aniga ii codaysay sidoo kalena baaq walaalnimo waxaan u diray mudanayaasha golaha deegaanka ee layla doortay oo aan markaa iyagana si karaamo iyo sharaf leh uga codsaday inay iyaguna ixtiraamaan dadka inta badani qofkii ay u codeeyeen in maanta la garab istaago madaxweyne waa kuu sharaf xukuumaddaaduna waa u wanaag in baaqii naga yimi aad markiiba nooga soo jawaabto oo aad noo yeedho waa sababta aad u tahay madaxweynaha qaranka waa sababta aad u tahay odayga somalilan intaana waan kaa filayey waan kaaga mahadnaqayaa waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa walaaladeeda kale ee xildhibaanada ah ee layla doortay ee iyaguna wanaagun la jecel somalilan ee wanaagga la jecel hargeysa markaa madaxweyne anigoo ku hadlaya magacii xildhibaanadiina la wada doortay dhammaantood xisbi walba ha ka sharxnaadaan xisbi walba ha ka soo baxaan aad iyo aad baan madaxweyne kugu mahadnaqaynaa waa ka mahad celinaynaa inaad markaa naaqbashay shacabka somalilan weliba gaar ahaan shacabka reer hargeysa ee codeeyey ee naga filaya inaanu u shaqayno oo aanu u dhisno hargeysa cusub iyagana waxa uu khayra u wanaaga in ilaahay siiye madaxweyne ixtiraamaya oo dhegaysanaya oo baaqooda anigu aan afkooda dee ku hadlayan lahaa intii badnayd baa ii codaysaye arrintaha lasoo dhex galo markiiba ka soo jawaabay iyaduna markaa waa sharaf weeye markaa dadkiina doortayna sidaa ha u ogaadaan insha allahu tacala madaxweynena inta hadhay waanu insha allahu tacala kula fadhiisan waanu kula dhammayn waa ogol lahay sharciga inay marto waa ogol lahay inay fadhiyo badan marto waa ogol lahay in maaragtay la wada hadlo waxaanan rajaynaya un insha allahu tacaala in dadkeena wanaagsan ee doorashada wanaagsan ay u dhacday ee midoobay ee markii ugu horreysay taariikhda hal qof uga wada codeeyey koono kasta oo magaalada ah iyagoo iska ilaawaya qabiilka iyo xaafadahaba in markaa insha allahu tacaala waxay raalli ku yihiin oo wanaagsani golaha deegaanka cusub dhexdooda ka soo baxo shaqo wanaagsan la wada qabto iyadoo la midaysan yahay hargeysadaynu jecelahayna markaa aynu dhisano caasimadii weeye magaaladii qaranka weeye magaaladii la wada lahaa weeye hawl weyn baa halkan taal 17 xildhibaan la doortayna xil weyn baa saaran qofka mas-uuliyadda qaadayana wuxuu u baahan yahay inuu isku wado dadka reer somaliland oo dhan waxaa la rabaa dadka reer hargeysa in la isku wado qofka mas-uuliyadda qaadaya markaa uma baahna inuu dhinac u janjeero inuu maaragtay xisbi gaara ku abtirsado waanu karaameynna xisbiyadaanu ka soo baxnay waanu ka mid nahay laakiin haddii dee kuraasta aanu u soconno aanu helo ummadda oo dhan baanu u shaqaynaynaa qaaraan xisbiye ku jirin baa jira qaar xisbiye ku jira marka ummaddana sidaa wanaagsan ee khayr kale baan ugu shaqaynaynaa madaxweyne marka halka ugu dambaysa waa kuu mahadnaqayaa wanaagga iyo degdega iyo baaqa aad noogu soo jawaabtay waanay ahayd ba iyadoon baaq ahayn inaanu dhammaantayo xildhibaanadu karti si fiisid kuugu nimaadno oo kusoo booqanno marka tanna waxaan uga faa'iidaysanaa madaxweyne booqashadayada xaqa aad noogu lahayd inay tahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu madaxweynaha wasiirada mudanayaasha xildhibaanada labada goloba ciddii ka fadhida mas-uuliyiinta kale ee qaranka mudanayaashii hore ee golaha dhammaantiin salaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan u malaynayaa munaasabadda waxay ku dhan tahay intii madaxweynuhu yidhi cabdikariinna si wanaagsan buu u hadlay waxaynu la soconnaa aynu guddigan wada qadarinaynaa waa laga werwersanaa annaka lafteedaa werwersaneen qoladeeda xukuumaddu werwerka ugu badan madaxweynuhu waxaanu malaynayaa anigu markaa dhakhtarna waan ka imi anigii madaxweynahayo intii doorashadu ay socotay dhowrkii casho intii ka dambeysay malaa maalintii 20 jeer ka badanna waanu wada hadli jirnay 10 jeer ka badanna waanu kulmi jirnay waa mare doorashadu way nagu cusbay
doorasho laba golo waa mare muddo doora bay nagu yara rafato xamaasad fara badan baa maxaan ku dhahdaa gashay laakiin waxaynu kaga baxnay